السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتين ميل walba dunida ka joogtiin YouTube channel-kan naga daawanaysaan waa Sitarino Official. Fadlan hadaa YouTube channel-keena ku cusub tahay subscribe, like, share, comment. maanta maxaan idin wadaa maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay waa part 2 maxaad ka taqaanaa kaftankii Roberto Mugambi. part 2giisa nala daawada. part 2 warqada lambarka koowaad ayaa waxay dhahaysaa haddii daanyeeradu maalqabeen ahaan lahaayeen waxaa la arki lahaa gabdho badan oo duurjoogno ah. midda labaad ayaa waxay leedahay gabar kasta waxay leedahay laba nin oo ay shukaansato ama la sheekaysato. mid ka mid ah waa midka ay jeceshahay, midna waa kaashiyarkeeda ama TM-keeda ay lacagta ka shubato. midda saddexaad ayaa waxay leedahay gabadha aad u dirto $3 ee haddana isla markii message call kugu soo gashaa guurso. waa gabar taqaana dhaqaalaynta lacagteeda. dhibaatooyinka Afrikaanka waxaa ka mid ah haddii la yidhaa qofna dibadda uma soo bixi karo oo waa bandow, qof walba wuu soo baxayaa balse uu u eego inay cidi soo baxday ama dad ay soo baxeen uu soo arko inay dad soo baxeen uu soo baxayaa asiin. inaad fool xumo tahay dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah haddii nin qurux badan uu kula joogo ay dhooso ka fakato dadkoo dhami aday ku soo wada eegayaan. midda kale ayaa waxay leedahay haddii aad saaxiibadaada ama girlfriendkaada video call ku wacdo ay kaa qaban weydo oo ay ku dhahdo sug baby waa li ii dhow yahay mise waa li ag fadhiyaa bro aamin wejigaas restore baa loo diray. maanta waxaa ka taqaanaa kaftankii Roberto Mugambi halaas ayuu ogyahay. waxaana noogu xig maanta muuqaalka xiga aad nalaga socon doontaan waa barnaamij cusub oo la magac baxaya sheeko iyo shactiro. barnaamijkaas wuxuu noo bilaaban doonaa insha Allah muuqaalka ku xiga. waxaad ku wada arki doontaan sheekooyin aad la yaabtaan, sheekooyin aad ku qosashaan adoo wadada socda xataa waa ma arkin isku qosle aad sheekooyinkaas daadhiisad. waxaan idin leeyahay tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.